السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ساعات من البواد جوكتان. هل كان شبكة ست جروس blogspot.com وأنا وعبيد داير وعشر كي أفراد كبرنيني مايكروسوفت و 2007 هدي أنا هروق لما أنت عايز كان ضاوي حنكو بردونا جروب فونت أنا كبردونا قابت جروب فونت اللي هذا هراء يعني كوشة جروب فونت وعي كتر سنة الريبون أي كتر سنتاي وكنا وهل كان ayaa loo yaqaanaa group font ayaan ku bar doonaa waxyaabaha ay qabtaan shaqooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin mid walba waan is dul taagi doonaa insha Allah. Okay, text ayaan xaalad galeysanayaa waxaan doonayaa text ama halkan shabakada zad groups oo kale fontigaas ay waxaan doonayaa inaad aan ka dhigo far waaweyn aan ka dhigo waa bold inaan ka dhigo waaweyn aan ka dhigo waxaan taabanayaa halkaas u jeedaan waa b halkaas u jeedaan ayaa taabanaysaa. Okay, oo jeeda in meeshii weyn noqoto ama bold ay noqoto haddii doonaysa inaad ka qaadano ayada ku celinaysaa oo jeeda in aad u yaraatay waxaan ka dhigi karaa italic farta waa jiifi karaa waxaan ka dhigi karaa oo kale underline line ayaan hoos ka mari karaa si ay meeshii igu calaamaysto oo qoraal kale ay ugu duunaato. Okay, halkaas waa sidaas waxa kale sameyn kartaa dawde boxkan direct boxkan ayaa adeegsan kartaa waan hore in ku wax badan ay qabtaa wax kana halkan oo kale font style-ki size-ki iyo font style oo italic bold waxyaabo dhan halkaas aad ka sameyn kartaa ayadana waxa ka sahlan halkan ay ka sahlan maadaama direct box soo furanayso waa halkan ay ka sahlan marka maadaama interface-ka ugu saaran tahay ayaa ka sahlan. Okay, waxa kale sameyn kartaa bold ama italic ama underline oo sameyn kartaa adoo adeegsan shortcut halkan haddaad fiiriso daawade meesha dad aan ku sheegay enhance tool tip meesha in dhahay waa meeshan halkan waa cadaanka ah wuxuu ku sheegayaa enhance kaas control ama shortcut aad adeegsan kartaa ku sheegay haddii aad fiiro bold aan isdul taago wuxuu leeyahay bold waxaad adeegsan kartaa control b haddii aad taabto control b oo jida font bold ay noqotay haddii aan tago italic oo kale enhance ku wuxuu sheegayaa inaad taabo karo control I farta ijiifi karo waxaan taabo kara control u si oo underline mariyo marka qaabkaas waa marka uu ku sheegayaa enhanced kaas waa cashirka hore ayaan ku soo qaadan bilowga cashirka aha. Okay, halkan haddaan fiirino kale underline noocyo kala duwan ayaad dooran kartaa noocan maarta dhibic maarta nooc arabtis ayaad saar kartaa aan ku gudbo taas marka halkan haddaan fiirino kale meeshaan ku xiga waa fartii in aan saarno علامات دير inaan saarno ka line dheer inaan saarno haddii aan tato u jeedaa farta wax ka bedel madaawad in uu saaray hal line oo dheer inuu farta ku dhex jaaxay u jeedaa qaabkaas uu sameyn kartaa sixiyada waxyaabo loo adeegsadaa halkan haddaan fiirno daawade superscript ay leeyahay superscript wuxuu ku sahlayaa superscript haddii aan hadda doonayo kala daawade in aan ka baxsho kale halkan haddii aan qoro halkan ku qoro aan doonayo endnote inaan ku sameeyo endnote halkan oo kale waxaan doonayaa inaan fasiro endnote aan sameeynaa Soomaali oo description aan gadaal uga baxshay aan doonayaa endnote inaan ku sameeyo had saa qaab daro weeyaan fartii iyo waxa salaagay lambarka asalaag marka waxa taabanaysaa oo kaliya superscript ay taabanaysaa oo jeedaa in uu yareeyo wankii uu dul saaray qoraalka ay dul saaraysaa u jeedaan xisaabaadka loo adeegsadaa square-ka ay loo adeegsadaa waxyaabaas dhan oo adeegsan kartaa marka. Okay, waa masantiin أنا elephant على رأس أمانة ضوء. Okay, أنا كجود بكاس مركا أنا ما هلا جلسته سأن كوكا أن كشرحه جانج كيس هل كان وكيس ماشان أجدا وكيس حالة هذه أنا هذا تو الشبكة هل كان ماشان أو كلام كان تو هذه أنا sentence case عنده sentence case معناه وفرته ماكي أن بلا وفرته كله حرف كواد inaad ka dhigto bold aad ka dhigto upper case inta kalena aad ka dhigto lower case waxa taabanaysaa sentence case qaabkaas sameyn kartaa laakiin dad doonayso gabigiisaba inaad ka dhigto lower case waxa taabanaysaa lower case ay meesha ay taabanaysaa gabigiisa oo aad ka dhigto farta yaryarka inaad ka dhigto haddii aad doonayso gabigiisa waxaad ka dhigi kartaa upper case saddexdaas ayaa u muhiimsan marka inaad ka barato meeshan sentence case-ka ama case-ka. Okay, sentence case yuda taas ayaa muhiim ah. Okay, taasna waa baranay haddii halkan aan fiirino halkan waa background-ka qoraalkiisa background hadaan fiirno hadda halkan oo kale background-giisu waa hadda waxa white way haddaan doonayo kale inaan ka dhigo kale background-kiisa halkan ay taabanaya meeshan
okay text highlighting waxa tabanaya jaalla ayaan ka dhigi karaa yellow waxa ka dhigi karaa halkaan oo kale cagaar ka dhigi karaa green nooc walba blue aan ka dhigi karaa everything aad doonayso okay marka sameyso oo jida in background-kii uu jaalla isku bedelay marka doonayso inaad ka laabato meesha aad soo furanaysaa xataa no color ay tabanaysaa qaabkaas ay background color-ka fartaarta aad ka bedeli kartaa background-kiisa halkan waa text color font color-ka text-gana aad fartiisa ku bedelaysaa hadaan ka dhigo blue oo kale we blue yeah okay yellow aan ka dhigo waa kana yellow ayaan ka dhigay hadda ujeedaan daawada farti yellow ayaan ka dhigay qaabkaas aad u dhigi kartaa marka aan ka laabto marka okay aan ku soo ceshto madowga blaagay okay qaabkaas ayaad u sameyn kartaa marka farta oo bedeli kartaa halkaan hadaan fiirno daawada waxa weeyaan halka inuu fartii ugu celiyo default-ga maadaama hadda aan fartii aan ka dhigo 28 aan ka dhigo fiiri size-ki 28 waay haddii aan doonayo default-ti waa 11 Soomaan marka aad Microsoft soo firto default-giisu waa 11 ayuu ku saaray size-ka fontiga waa 11 haddii aan taabto ujeedaa daawada waa ujeedaa 11 ayuu ugu celishay halka fonta daad fiirso waa 11 ayuu ugu celishay saa ujeedaa okay qaabkaas ayaa ah qaabka aad ku celin karto fontiga default-giisa inaad ku celiso taasna waa tashaa haddii aad imaado halkaan waxaad ka sameyn kartaa decrease fontiga haddaan riixo fartii decrease ay ku sameysmaa si yaraanaysaa haddii tan ku xigta aad taabatana waa fartii growth ay ku sameynaysaa increase way siyaadaysaa oo ku siyaadi kartaa okay saas decrease dhaada lasin qaabkaas ay sameyn kartaa halkaan waa font size-kii noocaad aad ka dhigi kartaa font saas aad u weynay kartaa halka ku xigan hadaan fiirno daawade waa farta qaabkeeda themka ama color ama themiska fontiga aad qaabin kartaa halkaas farta magacaabtid noocaabta wadankaabta aad saari kartaa okay farta ujeedaa waxyaabaha iska bedelay ilaa iyo boqolaal far ayaa ku jirta marka okay waa maasantii daawade maanta waxaan barnaa daawade qaabka aad u adeegsan karno font group oo aad u muhiim ah qofku markuu isticmaalayo waa 2007 ama xataa waa 2012 nooc walba oo isticmaalayo font group waa muhiim text kasta ama wax walba qorayso waxay ku dhisan tahay font group waa inaad adeegsataa muhiim weeyaan waa maasantiin waa aniga waxbiiday hayloobina channel subscribe dheesan hayloobina video like dheesan waa maasantiin cashar kale xiiso badan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh